السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan khiyaartana daawanaysay halkani waa Somali Super Sport saaxiibkiin Cismaan Fantastic waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta iyo xanta suuqa kala iibsiga qodobadan saaka daawadayaal aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah Arsenal godkooda ayuu biyo ugu galayaa Manchester City ayaa ka doonaysa mid ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan kooxdaasi ka dhisan qalacadda Emirates maxamed saalax oo go'aankiisa kama dambaysta ku wargeliyey saaxiibo ka tirsan naadiga Liverpool Sadio Mane isna waxa uu qaaday talaabo muujinaysa inay ka go'an tahay ku biirista naadiga Bayern Munich Real Madrid weeraryahan ayay ka dooratay horyaalka waddankaasi Ingiriiska Arsenal ayay kula loolamayaan wararkii ugu dambeeyey kubadda cagta kuwoodii ugu waaweynayeen waqtigani soo qaadan doonaa haddii ay tahay markii kugu horeysay waad soo booqatay Somali Super Sport fadlan subscribe barta Facebookana follow sii share garay oo rukuma janaalkan u diyaar garooba ilwareedyo lagu kalsoonaan karo oo laga helayo gudaha waddanka Ingiriiska ayaa sheegaya in Manchester City ay go'aan ku gaareen in talaabo dhab ay u qaadaan soo xirigelinta mid ka mid ah xidigaha naadigaasi Arsenal Daily Mail ayaa soo xiganaysa in Manchester City go'aan ku gaareen oo ay hoosta ka xariiqeen inay xoogga saaraan helitaanka xidiga lagu magacaabo Bukayo Saka laacibkan mustaqbalkiisa Arsenal weli kalama cada inkastoo qandaraaskiisa haatan uu ku jiro qodob xusaya in sanad uu ku dari karo haddii la isla meel dhigo taa oo micnaheedu yahay in ilaa 2024 uu sii joogi doono laakiin midkiisa haatan waxa uu dhacayaa 2023 weli ma jirto talaabo ay qaaday Arsenal oo ku aadan inay qandaraaska u kordhiyaan laacibkaasi ila wareedyadu waxa ay ku darayaan in laacibkani uu ka walwalsan yahay arrinta championka oo Arsenal markaasi xarash iyo madax ay ku jiraan maadaama ay ka qaybgalayaan tartanka Euro League waxaana Daily Mail ay soo xiganaysaa in wiilkani uu u nugul yahay ogolaashaha inuu ku biiro koox markaasi ka ciyaaraysa championka Liverpool ayaa la tilmaamay in hore ay u xiiseynayeen laacibkaasi Manchester City waxay u ballan qaadaysaa xidigan lagu magacaabo Saka in boos joogta iyo mushaar ka sareeya mid ka haatan uu ka qaato naadiga Arsenal in markaa uu helayo xidiga lagu magacaabo Lewandowski ayaa ka fikiraya in uu sii cakiriyo xaaladda u dhaxaysa isaga iyo naadiga Bayern Munich laacibkaasi dhowaantan waxa uu sheegay in uu go'aansaday ka tegitaanka kooxda isla markaana uu diyaar u yahay inuu ku biiro naadi ka baxsan Jarmalka Barcelona ay tahay mudnaantiisa koowaad naadiga Bayern Munich ma doonayaan in laacibkaasi si fudud ay ku sii daayaan waxayna ku gorgortamayaan lacag markaasi ay isla yihiin oo u qalma iyagoo markaasi ka duulaya xaaladda dhaqaale ee naadiga Barcelona haatan ay ku jirto laacibkan Lewandowski waxa uu cadeeyay in aanu tagi doonin xerada tababarka kooxda Bayern Munich ee ka horeeya xilli ciyaareedka bilaabanaya ka oo ay bilaabayaan toddobaadkani waxaana umuurtani laacibka uga gol leeyahay inuu ku cadaadiyo naadiga Bayern Munich inay dedejiyaan in markaasi ay ogolaadaan inay u diraan naadiga uu ku tamayo ilwareedyo ay qorayaan saxaafadda dalkaasi Spain ayaa sheegaya in Real Madrid ay ka fikirayaan inay helaan farsamada weeraryahanka naadiga Manchester City ee lagu magacaabo Jesus kadib markii ay ku fashilmeen qandaraas ay ku doonayeen Mbappe kaasoo ugu dambeyntii heshiis muddo dheer gaaraya qalinka ugu duugay naadigaas Paris Saint-Germain wargeyska The Sun ee laga leeyahay Ingiriiska ayaa soo xiganaysa in haatan Real Madrid si dhab ay uga fikirayaan in ay weeraryahankaasi helaan kaas oo Manchester City la tilmaamay in farsamadiisa ay u bandhigeen waqti sii horeeyay shalayta naadiyada Atletico Madrid iyo Real Madrid iyadoo ay sii dheer tahay xiise laacibka uu ka haysto naadiga Arsenal kuwaasoo xitaa sheegay in lambarka sagaalaad uu xiran doono
mushaar ka sareeya midka Manchester Cityna uu qaadan doono. laakiin dadka arrimaha suuqa turxaan bixiya waxay tilmaamayaan in naadigaasi Arsenal ay doonayaan inay ku degdegaan aan iraahday Manchester City in laacibka ay ka iibiyaan koox markaasi kula xifaaltamaysa gudaha horyaalka waddanka Ingiriiska. warar ay helayaan warbaahinta dalka Ingiriiska gaar ahaan wargeyska Daily Mail ayaa tilmaamaya in xidiga Sadio Mane ee Liverpool uu qaadayo tallaabo dhaba oo muujinaysa inuu ku biirayo naadiga Bayern Munich. laacibkani dhowaantan waxa uu gacan hatiyey in rabitaanka shacabka reer Senegal oo ah 70% inuu ka huleelo kooxdaasi Liverpool inuu noqon doono mid uu dhaqan gelinayo. Bayern Munich dalab hore waa laga soo diiday mid kale ay xalayto gudbiyeen ka oo gaaraya 35 milyan oo lacagta yuuroga. haatan wargeyska Daily Mail ee dalka Ingiriiska ka soo baxa waxa uu qorayaa in laacibkani uu ka wareystay xidiga lagu magacaabo Thiago Alcantara in markaasi gurigiisa ku yaal magaalada Munich ee dalka Jarmalka in markaa uu degi karo isla markaana waxa uu wareystay xaalka guud ahaan dalkaasi Jarmalka horyaalkiisa Bundesliga. Thiago Alcantara 7 sano ayuu ku qaatay naadiga Bayern Munich 7 jeer ayuuna kula guuleystay horyaalka dalkaasi Jarmalka ka hor inta xagaagii 2020 aanu ku biirin naadigaasi Liverpool. waxaana la tilmaamayaa in gurigiisa uu ku leeyahay magaalada Bayern Munich in markaasi uu banaan yahay. waxaana Sadio Mane u weydiiyey haatan in markaa uu degi karo ilaa iyo uu kaga xasilayo magaaladaasi. Somali Super Sport iyo daawanaysaan fadlan si shargare una gudbi asxaabtaada. xidiga Leeds United ee aadka haatan looga doonayo suuqa kala iibsiga Rafinha ayaa la tilmaamaya in markaasi uu ka doorbidayo naadiga Liverpool inuu ku biiro naadiga kale ee Barcelona. laacibkani ayaa wacdaro wacan ka dhigay horyaalka dalkaasi Ingiriiska. waxaana kooxaha haatan isha ku haya ka mid ah Barcelona iyo Liverpool xilli Liverpool ay u aragtay bedelka Sadio Mane. laakiin wargeyska Sport ee laga leeyahay dalka Spain ayaa qoraya in Rafinha mudnaanta koowaad uu siinayo naadigaasi Barcelona inkastoo dhaqaale ahaan markaasi ay wacan tahay naadiga Liverpool marka la eego mushaarka loo ballan qaaday. laakiin laacibka waxa uu doorbidayaa inuu ku biiro naadigaasi sida ay soo xiganayso warbaahinta dalkaasi Spain. go'aanka mustaqbalka laacibka toddobaadyada ugu dambeeya ee bishan ayuu kala cadaan doonaa. naadiga Real Madrid ayaa u dhow inay soo afjaraan oo ay ku dhawaaqaan heshiiska xidiga qadka dhexe ee kubadda uga qabaya naadiga Monaco ee lagu magacaabo Aurelien Tchouameni. laacibkaasi ayaa la filaya in qandaraas 5 sano ay siiyaan. waxaa la leeyahay haatan iyaga iyo naadigaasi Monaco waa isu soo dhowaanayaan dhanka lacagta. Real Madrid 60 milyan ayaa la tilmaamaya in haatan ay ku soo afjarayaan qandaraaska laacibkaas oo xitaa ay u adeegsan karaan daafac dhexe. naadiga Chelsea iyagoo ka duulaya inay ka takhalusaan weeraryahanka Lukaku waxay haatan wadahadal la bilaabeen naadiga Inter Milan ay u arkaan kuwa ay siin karaan laacibka. waxay haatan la yimaadeen qorshe ah in Inter Milan xitaa amaah ay ku qaataan laacibka sidoo kalena ay wada qaybsadaan mushaarka laacibkaasi. Inter Milan waxa ay hore u diiday lacagta qaaliga ee markaasi uu qaato laacibka. umuurtan ayaa imaanaysa xilli Chelsea ay si weyn uga fikiraysay inay toos uga takhalusaan laacibkaasi. gabagabada wararkayga aynu ku guda jirnaayeen naadiga Arsenalna waxa haatan ay haminaysaa in dalab ay ka geeyaan 23 sano jir weeraryahanka kooxdaasi Sassuolo ee dalka Atletico ka ciyaarta wiilka xariifka ee lagu magacaabo Gianluca Scamacca. laacibkaasi 12 gool ayuu dhaliyay kadib 19 kulan markaasi uu u saftay kooxdaasi Sassuolo xilli ciyaareedkan. waxaana kooxdiisa uu ku dhameeyey booska 11aad. Arsenal waxaa laacibkani sidoo kale kula loolami doona naadiga AC Milan ee horyaalka waddankaasi Talyaaniga. wahagaag daawadayaal wararkayga kale ee goosgooska aan idiin hayo waxaa ka mid ah
kooxdaasi oo Real Madrid ayaa la filaya inay dalab ka geeyaan sidoo kale qadaxa u ciyaara kooxdaasi Nice ee dalka Faransiiska Lovro Mayer ayaa lagu magacaaba waxaana laacibkaasi loogu magac daraa New Mutrich. Manchester United-na waxay ka fikirayaan in ay si dhaba ugu biiraan loolanka xidiga markaasi Milan daafac ugu ciyaara Denzel lagu magacaabo laakiin Bayern Munich ay loolan kala kulmayaan. Naadiga Paris Saint-Germain waxa ay ku soo biirtay xiisaha Ousmane Dembele Chelsea ayay ciriirinaysaa. Maxamed Saalaxna waxaa la tilmaamaya in saaxiibo aad ugu dhow kooxdaasi Liverpool uu ku wargeliyey markaa in kooxdiisa uu iska sii joogi doono haddii heshiis cusub aan la isku waafaqin qaab xuran ugu tegi doono ugu dambeyntiina uu ku biiri doono naadigaasi Barcelona. Wargeyska Mirror ayaa umuurtani qoraya. Naadiga Chelsea-na waxay doonaysaa 20 milyan ku iibiso xidigooda qadka dhexe ee lagu magacaabo Robin Chega waxaana ay diyaar u yihiin Inter Milan markaasi ay toos ugu iibiyeen xitaa lacagtana waa ay ka sugayaan oo waa ay yaryaranaysaa. Naadigaasi Juventusna iyagii Bagu waa isfahmeen qandaraas 4 sano ayay ka saxiixan 2 sano ayay ka saxiixanayaan lambarka 10aadna waa loo xirayaa. Daawadeel wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta xanta suuqa kala iibsiga waad ka daawanayseen xilligan barteeda waa naga intaa sii sheer gareey gudba asxaabtada waa saaxiibkiin fantastic fi amaanillah.